loolanka loogu jiro dekedaha Soomaaliya ayaa saameyn ku yeelanaya guud ahaan mustaqbalka dalka. Soomaaliya ayaa ka soo kabanaysa dagaaladii sokeeye, laakiin xiisadda Khaliijka ayaa halis ku haysa nabadgelyadeeda. Sanad ka hor, shirkad laga leeyahay Imaaraadka Carabta ayaa heshiis gaaraya $336 milyan oo dollar saxeexday, kaasi oo lagula wareegayo maamulka dekedda Boosaaso ee Puntland. Muddo kooban kadib, isla shirkad laga leeyahay Imaaraadka ayaa heshiis ku kacaya $440 milyan oo dollar la gashay Somaliland, kulana wareegtay maamulka dekedda Berbera. Bishii Maarch ayaa dowladda Itoobiya saami laga siiyey heshiiskaasi, inkastoo aan la shaacin qiimaha lacagta ah ee uu saamigaasi ku kacayo. Dhinaca kale, dowladda Turkiga oo xulafo la ah dalka Qatar ayaa maalgashi gaaraya balaayiin dollar ka wada Soomaaliya, iyadoo oo shirkad laga leeyahay dalka Turkigu ay maamusho dekedda Muqdisho tan iyo sanadkii 2014. Sidoo kale, shirkado Turki ah ayaa iyaguna qandaraasyo ku qaatay dhismaha wadooyinka, dugsiyada iyo isbitaalada Soomaaliya. Colaadda u dhaxaysa dalalka Khaliijka ayaa sii xoogaysatay bishii Juun markii Sacuudiga iyo Imaaraadku ay xiriirka u jareen Qatar, iyaga oo ku eedeeyay taageerada Iiraan iyo ururada argagixisada ah. Soomaaliya ayaa xeebaheeda waxaa mara shidaalka Khaliijka iyo caalamka, waxaana dekedaha Soomaaliya ka faa'iidaysan kara dalka Itoobiya oo aan xeeb lahayn, halkaasi ay ku nool yihiin 100 milyan oo qof. Dalalka Khaliijka iyo Soomaaliya ayaa wadaaga xidhiidh dhow oo taariikhi ah, laakiin waxaa arrintaasi halis ku ah xiisadda ka taagan gacanka Carbeed. Khubarada reer galbeedka ayaa qaarkood waxay tilmaamayaan in Sacuudiga iyo Imaaraadku ay warkaan dekedaha Soomaaliya, Jabuuti iyo Eritrea inay muhiim u yihiin ammaankooda qaranka. Sarkaal ka soo jeeda dalka Qatar ayaa wakaaladda wararka Reuters waxa uu sheegay in Qatar ay ku bixisay mashaariicda samafalka Soomaaliya $385 milyan oo dollar, lacagtaasi oo uu sheegay in si toos ah loogu wareejiyo dowladda dhexe ee federaalka ah. Sarkaalkan ayaa wakaaladda wararka u sheegay in dowladda Qatar ay khalad u aragto in lacagta si toosa loogu wareejiyo maamul goboleedyada, tallaabadaasi oo uu sheegay inay tahay mid ay samayso dowladda Imaaraadka. Waxaana uu xusay in arrintaasi ay wiiqayso awoodda shaqo ee dowladda dhexe federaalka ah. Xiisadda Khaliijka ayaa qalalaasa siyaasadeed ka abuurtay gudaha Soomaaliya, iyada oo dowladda dhexe ay qaadatay mowqif dhexdhexaad ah, laakiin Puntland iyo Somaliland ayaa iyagu ka soo horjeestay Qatar. Dalalka reer galbeedka ayaa iyagu walaac xoogan ka qaba in colaadda Khaliijku ay wiiqi karto dadaalka ay ku bixiyeen balaayiinta dollar ee ay maamusho Qaramada Midoobay, kaasi oo ujeedadiisu tahay in lagu dhiso ciidan burburiya kooxda Al-Shabaab ka hor intaan la gaadhin xilliga